shir wada tashi ah oo looga hadlayay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay doorashooyinka 2021 ayaa waxa isugu yimid xubno kamid ah odayaasha dhaqanka ee ahaa 135 saxiixayaasha ah iyo bulshada rayidka. Shirkan waxaa si aad ah looga hadlay xaaladaha adag ee uu haatan dalka marayo ee dhinacyada dhaqaalaha, amniga, abaaraha iyo tan bulsho ee cudurka COVID-19. Waxa ayna ka soo qaybgalayaasha shirka hoosta ka xariiqeen in khilaafka siyaasadeed uu adkeeyay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas. Waxayna odayaasha dhaqanka ay talooyin u jeediyeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka. Siyaasiyiinta maanta Soomaaliya gacanta ku haysa waan garan karnaa. Waa siyaasiyiin doonaya in walbaaba ninka kale ka adkaado. dad siyaasiyiin oo doonaya inay kala adkaadaan. maxay daraho ma runtaa meesha yaal. nibanu ninka kale ka adkaado u rabaa. waxaas marka siyaasiyiin anagu maahan arki mayno. waxaan u arkaynaa in toosnaantu ay ka fiican tahay. iyagu haday ku heshiin waayeen muddo badan baa la sugayay. dadkina wareer badan baana ummadii ku jira kaliya in la soo celiyo odayaasha dhaqanka iyo qolyaha arrimaha bulshada oo culimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo dadka kale inta aan kuraasta rabin mooye inta kale Soomaali loo soo celiyo ay ka tashadaan oo markaa go'aanka iyagu intay qaataan ka bacdi markaa la dhex dhigo go'aanka hala iyo arrinka hala sidaas la mid ah mas'uuliyadda maanta ilaa xilli kale wareeg hadda aan ku jirno weelna gacantiina ku jirto waa inaad u nuglaataan ummadiina iyo dalka dadka wakiilka aad ka tihiin sida sala aad ku timideen iyo qoro isku dhiibkii iyo santuuq doorashada oo madaxweynuhu ku yimidna sidaas la mid ah waxaan leenahay iyadana waa inaad ogolaataan oo aan diidinina. Cismaan Muxyidiin Shaatax, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ugu baaqay in ay heshiis rasmi ah ka gaaraan doorashada. Bulshada rayidka waxay aad u soo dhaweynaysaa warmurtiyeedka iyo baaqa ay soo jeediyeen iyo tala soo jeedintii ku jirtay warbixinta shirka maanta lagu soo gabagabeeyay Hotel Shamo oo ay yeesheen odayaasha dhaqanka. waxaana runtii ah muhiimad in markastaba haddii warka uusan talada u akrinaato in odayaasha dhaqanka talada lagu celiyo oo ay noqdaan dad talada wax ka geysta waxna ku sameeya. waxaan la qabnaa odayaasha dhaqanka walaaca ama aad ugu xunnahay heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka iyo rajaxumada ka muuqata shacabka Soomaaliyeed taasoo ka dhalatay khilaaf ka dhexeeya hogaankooda oo u muuqda mid aad u adag oo runtii aan ka turjuwaaneen danaha guud ee qaranka. Gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob. waxaana warbaahinta la wadaagay Suldaan Muuse Suldaan Lugaloox. odayaasha waxa uu soo jeediyay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka federaalka inaysan kala tagin iyagoon heshiis dhab ah ka gaarin si lagu suuragelin lahayd doorashooyin dalka dhaca oo la isla ogoliyeen. in dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ay muujiyaan mas'uuliyad dheeraad ah si loo adkeeyo midnimada, deganaanshaha iyo adkeynta dawladnimada. mar haddii madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka uu gaaray heerkii ugu sarreeyay waxaa laga maarmaan ah in la helo hanaan lagu adkeyn karo wada hadallada socda si loo helo mas'uuliyad buuxda oo lagu xaqiijin karo hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020. odayaasha waxa ay ka digayaan in lagu dhaqaaqo talaabo kasta oo keeni karta xasilooni darro iyo kala faquuq bulshada Soomaaliyeed ka dhex dhalato. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.